حلوان عبد الرحمن بريسة عبد الرحيم بريسة حلوان فرحية في الفلاس odayaasha dhaqanka ee beesha halkan fadhiya waxgaradka culimadiinka dhalinyarada haweenka gabdhaha quruxda badan shaqaalaha rayidka agaasimayaasha halkan ku sugan saraakiisha inta aan khudbadeeda gudgelin horta haddii ay waa ogahay halkan uma dhammaantay inta joogto oo fursad heshay bal istaaga bal aan fiirin adikoo raaliya aad iyo aad mahadsantiin iska fariista waxaa la rabaa inaan ogaado waa mahadsantiin bismi illah alxamdulilah maantay aniga waxay ii tahay sharaf waxayna sharaf iigu tahay badanaa xildhibaanada aan ka mid ahay waxay ka dhex shaqeeyaan soomaaliya iyo soomaalida ha noqoto dowlad goboleedyada ha noqoto siyaasadda guud ee dalka laakiin maanta in hoos loo soo noqdo oo muslim dhuxul oo habar ay dhaxay baarina sharaf ay tahay beeshana sharaf ay u tahay sababtoo ah xildhibaanimada waa halka xildhibaanimadu ay runtii ay ka timaado haddii aad xildhibaan haysanne fursad aad Soomaaliya ku dhex gasho lagu barto ma aadan helin marka beesh waxaan u mahad celinaa fursadda la siiyo xildhibaanimada oo sida falfalos joogta aan muddo dheer ku fadhiyay muddada dheer aan dhifkeeda aan raaxadeeda ogahay marka falfalos aan ugu aaminsan waxay tiri kooyada aad sare noo joog marka arrintaas aan uma diiday dhacday inta kadib waxaan oo kooban rabaa taariikhda inaan sheego aniga siyaasadda waxaan ku soo biiray waqtigan bagaati runtii aan odadeeda yartahay laakiin waqti aad u dhibanayd kadibna 2008 ayaan waxaan noqday xildhibaan wasiirka beeraha iyo biyaha waqtiga uu adkaa dalka ee dhibaatada ka jirtay ee Itoobiyaanka ay gudaha ku sugnaayeen iyo maxkamadaha dagaal ka socday kaalin weyn aan ka qaadanay arrinta waxaan ugu hogaaminayaa Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde aniga Axmed Cabdisalaam Tiin lamida shaqooyinka aan qabanana waa shaqooyin runtii taariikhda galay dad badan laga yaabaa inaysan la socon markii laga reebo wada hadalka iyo dibashiinta aan qaadanay oo aan wada hadalka la galnay maxkamadaha waxyaabaha aan qabanay waxaa ka mid ahay oo loo ogaay taariikhda suuqa bakaaraha shaqada aan ka qabanay iyo markii ugu horeysay aan golo deegaan ka dhisnay gobolka Banaadir golahaas deegaanka oo doorteen gudoomiye iyo labadiisa ku xigeen waxyaabaha runtii aan sheego karo maanta waxaa ka mid ah inkastoo wasiirka beeraha ahay aniga ahay kusimaha wasiirka arrimaha gudaha shaqada golaha deegaanka ee gobolka Banaadir laga dhisay qofka loo xil saaran oo shaqadaas soo qabto aan ku faraxsanahay inta haddii laga gudbo isla sanadkaas waxaan ku guuleysanay wada hadalkii maxkamada aan la galnay inaan runtii kamira dhalinay isla markaana Djibouti dowlad kale lagu soo dhisay waa soo kooba qodobada markaa maanta inaan sii wado 2010 wasiirka qorsheynta ahay wada hadalkii aniga Axmed Sariin waxaan wada xil saaray dowladda iyo ahlu sunna wal jamaa kaas oo kamira dhalinay isla markaana aan ku guuleysanay wada shaqayn weyn inay dhexdooda ay ka dhalato saasoo kale 2013 dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka ahay markii oo 2014 waxaan noqday wasiirka warfaafinta marka aan waxaan ku soo kordhiyay wasaaradda wax badan oo taariikh ah oo dadka qaar marqaatigiin halkan ay joogaan oo ay kamid tahay barnaamijka bixi jiro oo dhijir asbuuclaha oo aan dalka jirin iyo kaasoo English iyo ku bixi jiro runtii Soomaali si dalka horumarkiisa wax looga ogaado laakiin shaqada ugu weyn oo aan qabanno waxay Allah u naxariistay aniga iyo saaxiibkay injineeriso markii ugu horeysay waxaan hirgelinay istiraatiijiyad loo yaqaan BCVE ama sida fikirka xaq jirka loo hortago kaasoo Soomaaliya Kenya Tanzania Uganda Ethiopia iyo labada Suudaan aniga yariiso kala wahayn istiraatiijiyadaas oo istiraatiijiyada looga hortagi lahaa si aan dhalinyarada aan runtii fikir qaldan loo gelin arrintaasna waxay tahay in ay ruuxdeeda taageerada gashay waa soo koobaya aniga Mustafa Haan waxaan aaminsanahay inta aan matalay inaan magaxumo idin keenin guud ahaan Soomaaliya kama keenin gaar ahaan dadka Soomaaliyeed kama keenin nin macrifo kula Soomaaliya dhamaanteed meel walba tago oo lagu soo dhaweeyanahay taasna waxa keenay sida aan dadka Soomaaliyeed la dhaqmo taasoo jirta haddana caqabado fara badan oo iska jiraan caqabadaha jira waxaa kamid ah amni darrada dalka jirta waxay keenay inaan dalka shaqo ka jirin amni darrada waxay keenaysaa inaan kabiniyaal waaweyn ama dad investment ama maalgelin ku sameyn kara dalka inay imaan karin marka dalka oo amnigiisa la sixin cadaaladiisa la sixin
وأتكان اللي إن شاء الله أبوه صوت وحيد هاي كمبني الصوماليات أو دور كنا أفضل شخصي كلا دو جرينه هذا بيري أمو هالكمبني مركز دلك أن دقيم وأتكان ساسيت هاي فرنتو أسكت دير اللي أنا قرب سيو أنا لا شقيو أنا وقت السي قارو حنج أوه وقت دار أنجري إن كستون أنا مستنى هاي واحد بدل أنت أسكبل على قبكري إنه يجرتو على استيجروا حاكمي ذا الصومالي حلوان كوكاب قبيل وحال لوغي مانا ديو وحال لوغي مانا قف حرنا لسود دينا قف حتى حوكوي مانا قف دمبلي إنها تصود دمينته مرة دبعتي جرتا وحيت هاي وحال رأينا بالانس جريس سامع إسلاك يزيد حقوق المواطن كلا الصومالي قال ليه هاي هي حقوق قف كأمة الشغلية صوتها قف كلا الصومالي سير واحد يسمع كاسر واجب إنك استوقف كان وكوي هاي الحلبان وطاعي وحابا كلا جروا حاكمه دبعتها وآدي وعدك حلبانك وحيابها اللي تبع وعدك دمانته إنه قبته ورأينا السود هذا أنا وحنتي فرصت وحنا هلا السياسة عن كل شيء إذن كأسيسين هدانا حلوان نقولها هين سياسة الصومالية كما دحمودين هدانا نقول صلى ولا هين سياسة الصومالية كما دحمودين لكن أنا وحنا رأينا اللي يقول قيمة حلوان هذا برلمان الصومالي كجري حلوان الدرجة اللي تجوجين اللي يقول قيمة ورت موجود عليك أيها اللي تدعى عليها لو هذا بقول يطلعت الشط النمر كان كجري على فيرنا هدانا حتى صدق كاسمرة إلا سكيب عشان أقولها لكن حاول أجي أنا كفر هذا أنت هدي لقيت ترتنك السياسة ده صهر ترتنك السياسة ده وأركي معلم ودلح تضبط مرشح أو كم يدوبي كرسي فرد دارك تتوقف هذا كرسي يدوبي كرسي بربان كرسي ما بلقوم يدوبي طفت وحكة لقوم يدوبي وشرك معي كرسي قبض السوق هذانا مركز ضدكو وحيسميه كران إنه كم يدوبان إن كرسي الدورة صح لو قبته إنه كم يدوبان ضدك السكان لكن لحقة فوضى كرسي كم يدوبان أنا يقول لي بارك لكن طلع نهاية لحظة ده كنت بقولك هلا السي إلا هو مدوبين أنا كنت لا السي عندي صوب على الله إلا هي هالقضية أوكي في الوقت ده قاطعني عاكل الصهري ما دام رأيك قبلون كوب بديني قبلون روحوا الجوجان أنا كنت قبلها حقه إلا السي والربع لكن سيكستي تابع سنة كابرين نجورك سدا أو كراس أمر تاسع نوع قبلون الجعلالة الرد هاد فرأي فلفل إسرائيل لها وأوجه هاي رنتي الأسلام هاي أضيع سنة كانوا كانوا ريجو هيك استوى كلا صباح يرجع ماشي كتر كلا على الجو دول سود وهذا أنا وحنا بلن قاعد رنتي وحي هذي بوشين كر لا قاعد لكن حساب كأكينا مرة أنا وحنا بلن قاعد هدي على فرصة السياسيين وأنا بقول شقيو إن أنا شقيت دونه إن أنا تلدين دقيسة دونه إن أنا أسكور قبل دونه إن أنا مرة بنقد دونه حلبان لهلو آد أو ما سنتين جبدي rag saaxiibada fara badan bariyahan waa arkay laakiin anigu fikirkooda ay qabaan waxaan u deenaa bulshada aan matalno waa maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.